Maalin kasta waxaad isticmaashaa taleefankaaga, waxaadna daawataa telefishinka, waxaad isticmaashaa internetka, waxaadna eegtaa saadaasha hawada. Diyaaraduhuna waxay si ammaan ah ugu safraan cirka, maraakiibtuna waxay ku socdaal tagaan badaha weyn. Laakiinse weligaa ma isweydiisay waxa ka dambeeya dhammaan adeegyadaas? Jawaabtu waa dayax-gacmeed, oo af Ingiriisiga lagu yiraahdo satellites. Laakiinse waa maxay dayax-gacmeedku? Maxaa loogu diraa meelo dhulka aad uga fog? Sideese ayuu u shaqeeyaa? Sidee xogta u diraa uguna qaataa dhulka? Maxaase dhaca haddii uu sanado badan hawada ku jiro? Muuqaalkan waxaan si fudud ugu baran doonaa sirta ka dambeysa dayax-gacmeedyada iyo sababta dunida casriga ah ay ugu tiirsan tahay. Waa maxay dayax-gacmeed? Dayax-gacmeed waa shay ku wareega shay kale oo ka weyn, waxaana jira laba nooc oo dayax-gacmeed ah: dayax-gacmeed dabiici ah, dayax-gacmeed ay dadku sameeyeen. Tusaalaha ugu caansan ee dabiiciga ah waa dayaxa, kaas oo ku wareega dhulka. Laakiin markaan ka hadlayno satellites-ka, waxaan ula jeednaa mashiinadu ay dadku sameeyeen, ay ku rakibeen gantaalladu si ay hawada sare ugu qaadaan. Waxay u egyihiin kombiyuutarro waaweyn oo ku wareega dhulka. Haddaba, maxaa loo sameeyay dayax-gacmeedyada? Ka hor intaan la samaynin satellites-yada, isgaarsiintu waxay ahayd mid gaabis ah, saadaasha hawaduna ma ahayn mid sax ah. Mana jirin GPS-ka, internetkuna ma gaari karin meel kasta, telefishinaduna si fudud looguma baahin karin adduunyada oo dhan. Siyaasiyiintuna waxay doonayeen xal, sidaas darteed ayaa loo sameeyay dayax-gacmeedkuna. Maantana balaayiin qof ayaa ka faa'iideysta maalin kasta. Sidee ayuu ku tagaa dayax-gacmeedka hawada sare? Dayax-gacmeedku isaga uma duulo, waxaa lagu qaadaa gantaallo awood badan leh. Gantaalladaas wuxuu kaga gudbaa jawiga dhulka, isagoo gaaraya meelo bannaan oo loo yaqaan space-ka. Markaas uu gaaro jooggii loogu talagalay, dayax-gacmeedka waxaa laga kala sii daayaa gantaalladaas. Halkaas ayuu ku bilaabaa inuu ku wareegsado dhulka. Dad fara badan waxay isweydiiyaan, muxuusan hoos ugu soo dhicin haddii uu halkaa ku meeraysto dayax-gacmeedku? Dhulku wuu soo jiitaa dayax-gacmeedku sababtoo ah soo jiidkiisa, laakiin isla markaas dayax-gacmeedku wuxuu ku socdaa xawaare aad u weyn. Labadaas awoodood ayaa isku dheelitirta, taas oo ka dhigaysa inuu si joogto ah ugu wareegto dhulka halkii uu ku soo dhici lahaa. Maxaa ku jira gudaha dayax-gacmeedka? Dayax-gacmeed kasta waxa uu leeyahay qaybo aad u muhiim ah: solar panels, qorraxda ayaa ka qaata tamarta. Tamartaas ayaa loo beddelaa koronto. Korontadaas ayuu ku shaqeeyaa dayax-gacmeedka. Waxa uu kaloo leeyahay bateriyo. Bateriyadaas waxay kaydiyaan korontada. Marka ay qorraxdu ifaynin, bateriyaashu waxay sii wadaan bixinta tamarta. Waxa kale oo ay leeyihiin antenooyin, waxay u diraan calaamado microwave ah. Iyadaas ayaa isku xirta dayax-gacmeedyada xarunta dhulka. Waxa kale oo ay leeyihiin kombiyuutarro, waxay maamulaan dhammaan shaqooyinka dayax-gacmeedka. Waxay hubiyaan heerkulka, korontada, jihooyinka iyo isgaarsiinta. Kamaradooyin iyo dareemayaal, qaar waxay qaadaan sawirro, qaar waxay cabbiraan heerkulka, qaarna waxay la socdaan duufaannada iyo isbeddellada. Waxa kale oo ay leeyihiin matooro yaryar oo loo yaqaan thrusters, waxay saxaan jihada dayax-gacmeedka markii loo baahdo. Sidee ayuu xogta u gudbiyaa? Dayax-gacmeedyadu waxay isticmaalaan xiriirka raadiyaha. Marka xarun ku taal dhulka ay fariin dirto, anteenada dayax-gacmeedku way qabtaan, kombiyuutarradiisu way farsameeyaan xogta, kadib wuxuu dib ugu diraa meel kale oo ku taal dhulka. Dhammaan arrintaasi waxay dhacdaa ilbiriqsiyo gudahood. Noocyada dayax-gacmeedyada: dayax-gacmeedyada isgaarsiinta waxay gudbiyaan taleefannada, telefishinada iyo internetka. Dayax-gacmeedyada GPS-ka waxay kuu sheegaan meesha saxda ah ee aad joogto. Google Maps-ka iyo adeegyada hagista waxay ku shaqeeyaan GPS-ka. Dayax-gacmeedyada cimilada waxay la socdaan daruuraha, roobabka, duufaannada iyo heerkulka. Dayax-gacmeedyada militariga waxay ka caawiyaan dowladaha ilaalinta xuduudaha, dabagalka dhaqdhaqaaqyada iyo amniga qaranka. Dayax-gacmeedyada cilmi-baarista waxay daraaseeyaan dhulka, qorraxda, meerayaasha iyo caalamka. Yaa isticmaala dayax-gacmeedyada? Ku dhowaad qof kasta. Waxaa isticmaala dadka isticmaala taleefannada, shirkadda internetka, telefishinada, duuliyeyaasha, maraakiibta, beeraleyda, siyaasiyiinta, ciidamada, adeegyada guud ah iyo hay'adaha saadaasha hawada. Sidee loo maamulaa dayax-gacmeedyada? Inkastoo uu ku jiro hawada sare, haddana looma tago. Xarumo ku yaalla dhulka oo lagu maamulo ayaa lagala socdaa 24 saacadood. Waxaa la hubiyaa heerka bateriga, heerkulka,
xawaaraha, jihada iyo caafimaad qabka qalabka. Haddii ay dhacdo cillado, waxaa la isku dayaa in loo diro amarro fogfog si loo saxo. Intee ayuu shaqeeyaa? Badanaa dayax-gacmeedyadu waxay shaqeeyaan 5 sano, 10 sano, 15 sano, xitaa mararka qaar in ka badan 20 sano. Markuu shidaalka mise qalabku duugoobo, qaar waxaa loo wareejiyaa meelo ammaan badan, halka qaarna si qorsheysan loogu gubo jawiga dhulka. Caqabadaha ay la kulmaan: hawada sare ma aha meel fudud. Waxay la kulmaan qashimada hawada sare space debris, dhagaxaan yaryar oo hawada socda, shucaac xooggan, kuleyl iyo qabow daran, iyo cillado farsamo. Sidaa darteed, injineeradu waxay u naqshadayaan inay u adkeystaan xaaladahaas. Mustaqbalka waxaa la filayaa inay noqdaan dayax-gacmeedyada kuwo ka yar, ka caqli badan, ka dhaqsiyo badan, kana awood badan. Waxay sii horumarin doonaan internetka, isgaarsiinta, hagidda gaadiidka, saadaasha cimilada, iyo cilmi-baarista hawada sare, iyo adeegyo badan oo cusub. Dayax-gacmeedyadu waa indhaha iyo dhagaha dunida casriga ah. Iyada la'aantooda, isgaarsiinta, GPS-yada, telefishinada, saadaasha hawada, hagidda diyaaradaha, iyo adeegyo badan oo maanta isticmaalno si sahlan uma shaqeyn lahayn. Marka xigta oo aad isticmaasho taleefankaaga, furto Google Maps, daawato TV ama aad eegto saadaasha hawada, xasuusnow in boqolaal dayax-gacmeedyo ay si aamusnaan ah ugu wareegayaan dhulka, ayagoo ka dhigaya adeegyadaas kuwo suurtagala. Ka hor intaynu soo afjarin muuqaalka, aan idinla wadaago xaqiiqo la yaab leh oo ku saabsan dayax-gacmeedyada. Maanta waxaa dhulka ku dul wareegaya kumanaan dayax-gacmeedyo, laakiin ma wada dhammaantood kuwo shaqeeya. Qaar ayaa howlgab noqday, halka qaar kalena ay weli si firfircoon u shaqeynayaan. Dayax-gacmeedyadu waxay ku socdaan xawaare aad u sarreeya. Qaarkood waxay ku socdaan xawaare ku dhow 28,000 oo kiiloomitir saacadiiba, taas oo u oggolaanaysa inay dhulka ku wareegtaan 90 daqiiqo gudahood. Dayax-gacmeedyadu ma laha shidaal badan sida baabuurta ama diyaaradaha. Inta badanna tamartiisa wuxuu ka helaa qorraxda, isagoo adeegsanaya solar panel-ka, halka batariyaashiisa ay shaqeeyaan marka uu galo dhanka mugdiga ee dhulka. Sawirrada aan aragno duufaannada, dabaabaadka waaweyn, iyo fatahaadaha isbeddelada cimilada inta badan waxaa soo dira dayax-gacmeedyo ku sugan hawada sare. Haddii hal maalin dhammaan dayax-gacmeedyadu ay shaqada joojiyaan, waxaa si weyn u saameyn doonta internetka, telefishinada, isgaarsiinta, saadaasha hawada, iyo adeegyo kale oo aad u badan oo aan maalin kasta ku tiirsanahay. Aad ayaad ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. Waxaan rajeynayaa inaad aad wax uga fahanteen sida dayax-gacmeedyadu ay u shaqeeyaan iyo sababta ay dunida casriga ah ugu tiirsan tahay dayax-gacmeedyada. Haddii aad ka hesheen muuqaalka, fadlan like saar, lana wadaag asxaabtaada iyo qoyskaaga, kana mid noqo channel-ka La Soco Dunia Cusub si aadan uga tagin muuqaalka xiga ee ku saabsan tiknoolajiyadda, sayniska, mustaqbalka dunida, iyo tiknoolajiyadda. Ilaa muuqaalka xiga, nabadgelyo. Mahadsanidin. Sharaf iyo karaamo.